qofka fahamka يحبلو يحبلو horti socdaal soo waa dhow la liicato sameeyay inta qof Soomaali Maxamed ayna daawanaysa xalayna 20 daqiiqo ka yar baa aniga qadka iga yar xuno Addis Ababa aan joogaa Ethiopia aan joogaa garanaysaa marka dad fara badan oo aniga 3 bilood 4 bilood ku dhawaad horta social media maana soo galin nasiina صح iskaga jiray arrinkan marka arkay gabadha walaashayna waan u tacsiyay marka hore marka labaadna de 2 sano ka hor ku dhawaad 3 sano ka hor ayaan YouTube ka sheego aan erinayo meeshaas xaaladeeda okay ma aha hadda ka hor xitaa anoo xanaaqsan baan soo galay oo inaan gooni ka noqday guri gooni aan ka degay baan xanaaqsan inaan soo gala waxaa ereyga ahaa de inaan qof damba caawiya xitaa liinacsiyey baan moogta saanin oday ah oo halkan ka salaamay duu nool yahay nin oday oo waliba aad waayeel oo Ingiriiska jooga fariin dheer ay soo diray uu leeyahay liyo ereyga aad dhahday ma qurux badna oo wuxuu yiri dadkaas aan dhahday maanta waxaan jeclaan lahaa in aniga laftigii inaan qof damba aan caawinaan jeclaan lahaa ereygaas dib ugu laawo yiriyo dadkaas virus bay wadaan uu yiri viruska ay wadaan haddii kugu daartaana birna adaa lagu leeyahay xaasid baa taa moogta صح marka waad maqlaysaa Soomaa oo ku maqlaya aad iyo aad gaasmi ma maqashaa balo ma maqlaysaa waa ku maqlaya ha nin Ethiopia maxaa ka qaldan Ethiopia dadka aad iga xunno Addis Ababa waa jooga aniga dhankeyga way ma fahanti okay waa lagu maqlaa ay ku soco marka niyo waxa leeyahay dadkaas horta qalad waa gasheene sida wiilka yarka ibraka darba la leeyahay ilaahay aqliga uu siiyo oo ku soo fadhiistay YouTube-ka oo hadda uu leeyahay aniga waa qaldamay gabadhaas walaashay waa ka qaldamay hal iga raali ahaada de soo wada fadhiisto qaladkiina qirta meesha Soomaali waa maxkamade runta la isku sheegay social media waa maxkamad qalad yar haduu dhaco Soomaalida de saaxiib waa inda ku garaadlayaal dadka qaldan way arkaan qofka saxan way arkaan marka de waxa leeyahay kulligiin waa wada qaldanteene ilaahay nafis weydiista umadana de afis weydiista dambiga aad gasheen mar dambe ha u noqonina meesh Malaysia dad badan caafimaad u imaadaan biri waxa la idinka rabaa inaad dadkii marti idin soo noqdeen si fiican soo dhaweysaan waxaasnimadiisa 3 sano ka hor la isku sheegay iska saartaan hadda idin haysataa mid kale riwaayadaha hadda la wada iska daaya qof walba hadda riwaayadu sameeysanaya ma fahanti qof walba hadda riwaayad sameeysanaya ma fahmaysin gabadhaas walaasheena oo si fiican ugu tacsiyay oo wada fariista oo wada taga dalkiina joogta Soomaalidana raali gareeya laan dheernimo liicato ma maqashaa saaxiib waan ku maqlay walaalkay liyo 2 sano ka hor miya ahayd liyo markaa ka hadlaysay anigu waa arkay ma ogtaa fahmaysaa ma qof walba xalalna liisoo wada qorayo ha marka niyow horta niyow wax Soomaali wada aragtay Soomaalidu waa taqaanaa liicato hadday markuu arkaan waa soo ku arkeen 20,000 qof ama 30 ama 100,000 qof hadii markuu aragto waxay ku arkeen wax yar ma aha hadda fiiri dad baa waxay raadinayaan ma taqaanaa qiilka ay raadinayaan ma taqaanaa waa dareysana soo hadda kulay riwaayad iska daaya Allah yaab qiilka ani hadda fiiri shalay markaan leefka soo galay ma aragtay waa barnaamijka ka hadlay billahi tulam cidda qori u haysa gabadhaas hadda walaasheen ah qabiilka ay tahay iyo waxay tahay anigu kama wada qabinba ma fahamsaa gabar Soomaaliyeed oo barnaamij ku dhacay oo halkaas ii sheeg lagu dulmiyay baan ka hadlayay moogta marka dad baa rabaa inay dad xun oo niyo ii sheeg baa inay wixii wax kala ka dhigaan waa Soomaali weyn oo dhan baa gabadhaas garib istaagtay dadkaasna waxay yihiin waa la sheegay waan la cadeeyay inay dad danaystayaal ah oo kaligood halkaas ii sheeg muxuu ahaa dulinimo iyo axwaano u fadhiyihiin oo qofka walaalkood ah hadda ninkan halkaas oo fadhiya oo socdaal ugu qoran tahay waa la shaqeyn jiray waa nin kii adiga hadda kii ooyay socdaal ma ooyay socdaalow socdaal way la soo hadlay socdaal arrinkiisa asaa nin raga weeye asaana ka bixi kara dadaalkiisa ugu bixi kara hadduu caajis loo yahay hadda halkiisu fadhi kara ma fahanti laakiin nin dadaal badan hadduu yahay waxaas oo dhan wuu dardari karaa wuu dardari karaa socdaal horta niyo hal su'aal baa ku weydiiyay adoo xumaa gahen hadda ka hor ninka waa milinka gaaray ninkii ooyayso adi maahan ninka saaxiibtinimo darteed de waa la raba Soomaa aniga qof kastoo Soomaaliya la rabaa aniga inuu guuleysto war hadda fiiri yaxbulo wiil inanka yarka ibaka darbalo gees u wareegaa la magaalada gees u ka digay
meel geesu ka dagaala ibra ka darba saakana haddeerta hurdo markaa kasoo kacanay video arkay asoo dhahay waa qaldamay walaasha hadda kahor youtube-keeda waa kasoo muuqday xaaladeeda waa la socday intii ka dambeysana waa buuqan waaye de waana qaldamuu dha ma fahmaysaa soomaalidana ka qaldamay gabadhaas hooyada ah waan ka qaldamay de raali garaan qurux badan oo bixiyey ma fahamti de walaalayaalo wixiina waa la idiin jeedaayo ummadii dhan ay idiin wada jeedee dee qof walba raali garaan toos ha bixiyo gabadhaas walaashana intay meesha joogtana garab buuxa la siiyo ما يدين حمي انت شوي ليه عطوا مقلص صاحب نيو موقتاي ما انتو دن موقتاي hadii la iska hadal han bixin moogtahay Soomaaliyeed dhan hadda way ogaatay ninka dhalinyarada hadda hoos jooga adoo hadda talaasisay asaga meeshan ragnimo iskaga bixi karo waa sax yaxbulu ani qadka iga go'ay live ka haleenayay qadka iga go'ay waa ما قد كان عاد كون مقلي يا صاحب لي عطوا هل متى ساعه انا قد كان يغوغا يحبل هوسا كا داونيا هوسا كا هل سؤال باك ويدينيا لي عطوا هذه نمبر انت دقن هل سؤال باك ويدينيا ما مقشع اي صح نيو هل سؤال باك ويدينيا واكو مقليا نيو اديغا marka waagi malees tagtay hada waxa kala kulantay minoo sheekay dhacdo raaliye bismillaahir rahmaanir yaxbulu adiga arrinkaas waa waaweyn yahay ragnimadeedan uga soo baxay inta qof aan caawin karana oo waayo wixii ay banaanka yimaadeen oo wixii hadda saaxiib fiiri Soomaalidan hadda u bayaanisay inaad si caadi ah u sheegtid saaxiib oo noo sheegtid baa jeclaan lahayn adoo raaliya yaxbulo horta gacmaha lagama haayo afkana igama xirno kowdhe dee aniga halkaasi wixii aan kala kulmay aniga ragnimadeeda uga soo baxay ma fahmaysaa hadal qurux badanna waa u reebo iska daaya ay xaasidnimada Soomaalidana waa u hoosgeliyay waan u sheegay youtube-ka dib hadii looga laabto xitaa waa la helayaa waxay aad weli u yaqaanaan saaxiib dhoola cadeynta waa lagu dhoola cadeynaa gadaalna waa laga cunaa ma fahanti exactly waa ku raacsana I agree with him lii waa ku raacsana marka inaa haddeertaan yaxbulo hadda aniga hadda Malaysia ma fadhiyi nin cabaadayo ma ihi dee sidii laan dheernimo saaxiib waan soo baxayo geesaan ka dago guri magaalada ugu weynaayaa degayo inta qof aan garab siin karno waa soo garab siiyo inta qof la cilcili karo ma ani aan arkana garab waa soo siiyo war shaqeysta iri nacala hooyadin ku yaala shaqeysta oo dad fiican noqda dee dadkii saaxiib kulligood lafii oo dhan ba cudur baa ka galay xaasidnimo ka gashay ayagoo dhan ba xaasidnimo lugaha ilaa madaxa xaasidnimo ka gashay dee anigana dad wali wada cadow oo wada nooc kala ayo la isku wada qoslayo oo aad u jeedido lis goosanayo kuma dhex noolaan kari saaxiib ragnimadeeda ugu soo dhex baxay halkaasaan cirkaas ugu sii dhagay inaan haddeertaan dib ugu laabto iyo aan dad eedeeyana daba qurux badna waa ayaga iyo maanta heesataa Soomaali oo dhan u jeedo dee maanta heesataa ilaahayna cafisa weydiistaan gabadhaas walaasheen ahana ee ilmaha yarka ka dhintaan cafisa weydiistaan hadda kadibna dad toosan ha noqdaan haddii noqon waayaanna Soomaa dee Soomaali waa maxkamad saaxiib waa suuto wada miiran weeye ma fahanti wasamsi wada ha ku qaadaan ma fahmaysaa qofkii annaga aan jecelnahay aan leenahay qofkan uu saxan yahay koraan u qaadayna qofkan qalad yar iyo kibir aan ka dareenaane annaga Soomaali haddaan isla weynid waa necebna runta hadii laga hadlo dee qofka isla weyna saaxiib dhulkaasa keenaa shalba anaga kor u qaadnay aad niyo lii caatow aad baa maastaa saaxiib niyo anigu hadda su'aasha waxa ku weydiiyay macnaha jooska haddaad macnaha haddaad faahfaahin ka dhidi haddaad faahfaahin karinba aad baa maastaa saaxiib niyo nin weyn oo macquul ah oo halkaas social media laga yaqaano oo muddo kusoo jiray baa tahay fahmaysaa qof kasta hadalkiisa nin ciilan baa fiiri yaxbulo ku hoosgeliye nin ciilan oo weli meeshii jooga baa wax faahfaahay laakiin nin ciilan ma ahi ilaaha baa ciil iga takoorayba ma fahmaysaa socdaal baa ka wadaa waxa adiga yaxbulo idin dirnida ها ما واحد صعب ماشي horta li yaxbulo wariya socdaalo ninka dhalo ku jibinaya ma jeedaa dhalo ii jibina u jeedaa ما يدبixi baa hoos dhigtay anaka bad iska leexiyay ma socdaal uu kula hadlay fiir yaxbulo horta inuu guweynimo iska daa socdaal uu hadlay socdaal nin rag weeye wuu soo fadhiistay afarkun baa daawanaysa waa liga gardaranya waa liga gardaroodo ku yiri wuu hadlay haddii YouTube u baahan yahay 24 saac soo duubi kara farsamadii wuu leeyahay wuu ila soo hadlaa socdaal soo ilma soo hayso ima soo wacin ha of course wasla hadalna ha socdaal way soo waca aniga wuu ila sheekaystaa fikradaan siiya niyo saan yeel niyo cadaab ku jirta cadaabta ka bax cadaabku ma jiro yiri saaxiib
aniga hadda u baahana YouTube yiri hadeertaana soo fariisan karaa hadeertaana waxa doona ka hadli karaayo hadeer shaqeysan karaa ma fahanti marka waxaan dib kugu celinayaa erayga waxaan ku leeyahay waagaas haddaan micnaa ciilalaan lahaa oo nin ciilan aan ahaan lahaa de waa hadli lahay nin ragnimadiisii meel ku maraan ahay ma fahanti socdaalna nin ciilan maahan hadduu soo jeesto dee nin raga oo meel maro noqonaya ma fahmaysaa yaxbulo aad